munaasabad lagu qabtay jaamacadda Sanaag University ee magaalada Ceergaab ayaa waxaa halkaasi shahaadooyin aqooneed lagu guddoonsiiyay 730 arday oo ka qalin jabiyay qaybaha kala duwan ee jaamacadda Sanaag University kuwaas oo noqonaya dufcaddii labaad ardayda wax ka barata jaamacaddaasi ee qalin jabiya waxaana munaasabadan ay ka soo qayb galeen xubno heer wasiir ka socday madaxda maamulka heer gobol iyo degmada ee Ceergaab oo guddoonka waxbarashada gobolka Sanaag madaxda jaamacaddan madaxa dhaqameedyo iyo waalidiin tiro badan ardayda iyo macallimiinta jaamacaddan qurba joog aqoon-yahano dhalinyaro iyo marti sharaf kaleba ugu horreyn waxaa halkaasi hadal munaasabadaasi ku saabsan ka soo jeediyay guddoomiyaha jaamacadda Sanaag University Professor Cali Cabdi Hurre halkan waxaan soo taagay in aan iclaamiyo ama aan sheego in 730 arday ay maanta ka dhamaysteen waxbarashadoodii jaamacadda oo ah dafcaddii labaad ee jaamacadda ka qalin jabisa waxaan hambalyeeynaa ardayda juhdi badan gelisay ee muddada badan soo dadaalaysay waxaan leeyahay shaqada ka dheeraanina shaqada hoos oo eegina shaqadu haydin dheer la ekaato xubno isugu jiray macallimiinta jaamacadda qurba joogta madax dhaqameedyada iyo waalidiinta oo iyaguna halkaasi ka hadlaya waxa hadaladoodii ka mid ahaa ardayda qalinkiisa uma mahad celinaya waxaan leeyahay waxbarashadii may dhamaan imika bilaabantay hamoodina in halka waxbarashadu ku dhamaatay waxa weeye waxbarashadii imika bilow tahay runtii waxaan sheegay ardayda qalin jabisay waa inaad bedeshaan dadkeenii waxaan runtii soo jeedinaya wasiirada halkan joogana jaamacadda geedi socodkeedii muu dhamaan jaamacadda markaad la fadhiisataan maamulka wixii ka dhiman ku dara qurba joogana waxaan leeyahay dee jaamacaddu waa taas oo hirgashay macallimiintan inaanay bilo badan mushaar qaadan xataa maamulku mushaar ma qaato inaynu macallimiinta meel saarno war qolooyinkan imika waxaa jira telesom somtel kambaniga qaadka dahabshiin leertriga intaasoo dhan waa kambaniyo waxaynu maanta ka codsanaynaa inay jaamacadda min hal macallin muddo sanada mushaarka inaga bixiya anigoo ku hadlaya afkii dhaqanka gobolka Sanaag munaasabadana wakiilkaga ah waxaan aad iyo aad ugu hambalyeeyaa ardayda maanta ilaahay nasiibka noo siiyay farxadoodii inaanu kala soo qayb galno jaamacaddii waa aragtan saacada wasaaradda 10 jeer waqti badan oo halka yimi baan hadalkaan niri waxaan wanaagay deg jabna looma siiyo idinkana way faraynaa wixii ka dhiman way ka rabnaa jaamacadda guddoomiyaha guddida jaamacadaha Sanaag iyo guddoomiyaha waxbarashada gobolka Sanaag Ani Saalax Jaacsan ayaa iyagana hadallo ay munaasabadan ka yiraahdeen waxa ka mid ahaa waxaan kantaroolaynaa insha Allah taala jaamacadka credit hours-ka iyo ardaygii inuu noqdo arday full ah oo matali kara dadkan qalin jabinaya ardayda jaamacaddan Sanaag waa xaqiiqa wasiir wax badan ma ka dhiman waxaan aynu si gaar ah doonaynaa maadaama magacii gobolka jaamacaddan u qaadatay inaynu si wanaagsan wasaaraddu ay ula shaqayso gabagabadina waxaa munaasabadaasi hadalkiisa ka dambeeyay maayarka Ceergaab Ismaaciil Xaaji Nuur Barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay iyo wasiiru dawlaha waxbarashada Soomaaliland Maxamed Xaaji Aadan oo isagu munaasabadan soo gunaanaday ardayda qalin jabisay waxaan ilaahay uga baryayaa kuwii naftooda anfaca dalkooda anfaca dadkooda anfaca inay noqdaan baan ilaahay uga baryayaa waxaan rajaynayaa dafcaddii labaad weeye kuwii Ceergaab wax weyn ka bedela oo runtii dhinaca mustaqbalka dhinaca horumarka dhinaca cilmiga dhinaca waxbarashada dhinaca baabiinta qabyaaladda dhinaca baabiinta qaadka inaan noqotaan baan ilaahay ka baryayaa inaan qalin jabintii labaad ama qalin wareejintii jaamacadda Sanaag aan ka soo qayb galo aad iyo aad bay farxad igu tahay cilmigu si aan inqidaac daraasaydu ku dhicin iskuullada sare iyo jaamacaddaba wax ka dhiga insha Allah heega baan midinahay way barbar taaganahay waa waajibaad xukuumi ah oo ay xukuumaddu ku ballan qaaday inay tacliinta sare tayaysiiso jaamacadaha badankoodana waxaynu ugu talagalnay budget xoogaa ah oo lagu kabayo waxaan maanta halkan idinku bushaaraynayaa in tacliinta sare ay ku caawinayso jaamacaddan lacag dhan $9,000 oo loogu talagalay inay ku iibsato qalabka iyo agabka ay u baahan tahay macallimiin baan idin haynaa jaamacad maxaa ka 50 arday ama 50 macallin oo 2 sano intensive course qaadanaya oo macallin ku soo baxaya bilaash ah
marka insha Allah taala ku soo dirgelisay intaasi kadibna waxaa halkaasi shahaadooyinkoodii aqooneed lagu guddoonsiiyey 37 arday ka qalin jabiyey qaybaha kala duwan ee jaamacaddan Sanaag University waxaana xusid mudan in shahaadooyin sharafeedyo lagu maamusay halkaasi lagu guddoonsiiyey barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falaay maayarka Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur gudoomiyaha waxbarashada gobolka Sanaag Ani Saalax Xaaji Xasan Mustafa Saalax Xaaji Xasan oo isaguna qurbo joogta ka socday iyo waliba xubno kale waa Cabdullaahi Xuseen Darwiish Kalsan TV Ceerigaabo